السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أو ونكسن داوديال إذا لهانتين بميل كستود عالمك إنك دال عنيسان كسو دوادا دوكس ميديا أو سيتوصة عن وذين كجسو دينو برنامج هذا الرماح بالشدة يولي بقى سياسة كما مرنا مركزي لعدوين كتاجن إيو حيابها سوكرنا aad baad u mahadsantiin haddii ay tahay markii kuugu horeysay channelka subscribe garay haddii aad hore noola joogtana waad ku mahadsan tahay la joogaaga intaa dibadeed maanta dhowr qodob oo ku saabsan runtii xaaladaha taagan ee siyaasadeed ayaan doonaynaa insha Allah hadduu eeb idmo inaan halkan ku falanqeyno waxaana si wada jir ah u daadihinaya hadduu eeb idmo wariye Xamza Maxamed iyo anigoo Cabdirasaaq Suuli Cali mar walbaad ku soo dhawaada channelka Duxi Media Xamza ku soo dhawow bal marka ugu horeysa Duxi Media iyo xaaladda تمام السلام يا أصحابتي دوكسي ميديا سو عبد الرزاق شاقي ولي عبد الرزاق فضلا سو سبسكرايب قرأ channelka دوكسي ميديا وتعال بعض ما تنتهي haddii aan falanqeynteeni iyo arrimaheeni aan sii dhex galno maanta waxay ahayd maalin runtii in badan la wada sugayay oo ummadda Soomaaliyeed ay sugaysay natiijada ka imaan doonta kulankii ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba madaxda maamul goboleedyada ay maanta ku yeelanayeen gudaha dalka Soomaaliya arrimahaas haddii aan ku hormarno marka ugu horeysa shirkii sidoo ku dhamaaday maxay tahay xaaladda aad arrimahaas ayada ah aad ka leedahay abzaaq aad baad mahadsan tahay ummadda Soomaaliyeed maanta guud ahaan meel kastoo caalamka joogto waxaa isha lagu hayaa magaalada Muqdisho caasimadda dalka shirkaas ra'iisul wasaaruhu isugu yeedhay ama ku casumay dhammaan qaybaha saamileeda siyaasadeed ay macnaha maamul goboleedyada ugu horeeyaan ayaa maanta laga daafuray magaalada Muqdisho shirka si weyn bay ummadda Soomaaliyeed maartay ay u sugaysay dhowr jeer hore saddex socdo Dhuusamareeb ilaa 4 jeer baa la tagay haddana Muqdisho la yimid September 17 September heshiis la ilaa la gaaray natiijooyin maartay waa laga gaaray marka isfaham balse mayna noqon meel dhal habkii loo fulin lahaa marka kulankii ugu dambeeyay Cabdirasaaq baarlamaanka Soomaaliya uu yeesho madaxweynuhu hortagay ayuu madaxweynuhu u xisaaray ra'iisul wasaaraha hawsha doorashooyinka maadaama ay culays lagu saaray madaxweynaha inuu wax walba waxa ka mas'uula ra'iisul wasaaraha marka shirkan waa si weyn baa looga dhursugaya runtii ummadda Soomaaliyeed waqti badan oo lumay waa tahay haddii aan ayada laftirkeeda aan ku soo laabto Xamza beesha caalamka iyo waliba siyaasiyiinta Soomaalida waxay indhaha aad uga hayeen maanta madaxweynuhu inuu arrintaas ayada walow hore ugu wareejiyay ra'iisul wasaaraha dalka inuu ka qayb gali doono shirka haddana maanta lagama dhex arkin madaxweynaha Soomaaliya marka arrintaasi ma waxay la xiriirtaa baad leedahay go'aankii hore madaxweynuhu uu qaatay oo ahayd arrinta sidoo ra'iisul wasaaraha ugu wareejiyay inuu ra'iisul wasaaruhu arrimihiisa u wato mase arrin kale oo markaasi ayaa jirta oo aad waxaan filayaa kulli xasaasiyad baa jirta maadaama madaxweynaha madaxleedkiisa uu dhamaaday aad weyn marka mas'uuliyiinta hadda maamul goboleedyada iyo asxaabta siyaasadeed jirtaan si weyn bay madaxweynaha ay arrintan muddo u soo jiitamaysa marka 8 February buu ahaa teramka madaxweynahan doorashada ma dhicin sidaa daraadeed meesha waxaa u baahan kalsoonidii dhinacyada siyaasadeed iyo maamul goboleedyada oo qaybta ugu weynaa waddanka macnaha miisaanka siyaasadeed uu leeyahay macnaha maadaama madaxweynuhu uu iska wareejiyey mas-uuliyaddii macnaha imaanshihiisaas in meesha ay ka dhalato maadaama arrimo xasaasiya isku joogo ka khayraadaata taas loo arkay xal wasaarahuna la yidhi de mas-uuliyaddiisa mas-uuliyadda waana qaataa aad weyn adaas baa saaran madaxweynaha hadda ma saaran iska wareejiyey culayska hadda wuxuu saaran yahay prime minister ku saaran yahay waa gartay marka anigu kolley waxaan qiyaasayaa inay arrinta ahayd ka maqnaanshihiisu dee haddii Soomaali israacsan tahay oo siyaasadda la isku raacsan yahay weli isaga lama bedelin oo madaxweynaha isaga jooga bal waxay inuu yani protocol ahaan maalinka ka horeysa kasoo qayb gal aad weyn ama ilaa shirka waa furay kadibna uu dee ka baxo laakiin tan waxaan maleeyahay heshiiskii bay qayb ka ahayd in la yidhi rooblow ra'iisul wasaare show me leadership ratus hogaamiyatahay mareynaya waxbaa la ilaalinaya aad weyn kulamadii hore ee madaxda maamul goboleedyada sida madaxweyne Deni oo kale iyo madaxweyne
axmed madow oo kale markay imaanayaan runtii zaxmad baa laga dareemi jiray magaalada muqdisho ayagoo zaanad military oo markaas aad moodo inay iska soo horeeyaan amaba aysan ku aamin qabin runtii markaasi federaalka ciidamada federaalka ama ciidamada kale oo markaasi nabad ilaalinta meesha u jooga maanta arrintii ayada ahayd wax saameyna ma yeelato ma jirtay mase siday madaxda kale ay ku yimaadeen kule waxaan filayaa waxay maadaama la yidhi awoodihii amniga iyo macnaha ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta baa la wareegay waxaan malaynayaa inaysan jirin markaa wax conflict macnaha wax weyn oo aada isaga sii ilaaliyo balse ana waxaan filayaa in camerada laga qariyay magaalooyinka ay wataan oo hadda xoogaa arrinta hoos loo dhigay laakiin weli way jirtaa diyaaradda ay wateen madaxii caadi maahayn diyaaradda 200 oo qaaday waa gartay marka waxaan filayaa wax walba yani dadka Soomaaliyeed wadankii waa wadan hadda curdana dowladdii hadda yagleel bay ku jirtay tension baa dhacay oo yani waa khatar baan galay xamar dagaal baa ka dhacay oo maaragtay hooyooyin badan ay qaxeen badan baa dhacay so waxaan maraynayaa in la yareeyay oo maaragtay isbaal xuftayntii ciidamadii wixii ilaaladii waxaas inay baxeen okay dhinaca madaxtooyada la xakameeyey dhinacan maamulka tensionka hala dejiyo marka prime ministerku si toos ah arrintii hadda kalsoonidii buu haystaa marka focusku wuxuu saaran yahay prime minister Roble ujeeda cusub siyaasadeed todoba maalmood soo socota ama badbaadiyo noqonaya waxa weeye isagana waa loo bixin doona laakiin hadda bijiyo fursadda aad u fiican buu haystaa waayo kalsooni buu ka haystaa xaggii madaxweynihii mucaaradkii maaragtay iyo maamul goboleedadii waa tahay markii aad fiiriso shirkii waa furmay waana la galay wejigiisii ugu horeeya muxuu kusoo dhamaadaad isleedahay oo markaasi isleedahay shir dadiilo u noqda ama markaasi hore u socodsiiya arrimaha Soomaaliya ayuu noqonaya abisa qaad baad mahadsan tahay maraan magaalada Muqdisho maanta la xiriiray markuu shirku dhamaaday afyeenka xukuumaduna kulay uu warbixin ka soo saaray ila kulli dhow marka waxay sheegeen qodobadii la isku hayay qayb ka mid ah yani in xal laga gaaray shirkii oo uu ahaa daafur marka dilaad weyn baa laga muujinayaa maanta shirkii inuu macnaha jawigiisu aad u fiicnaa oo aan ahayn من دم الدكتور ما يصير. وكبد اسمه شركة هرب. شركة وكد وأنا. برتقال هني دامها. ما ده وأنا كسير بودي لانجويج كحلي هذا مقال كود. هذا وين. دبع سنة بعد. دبع سنة بعد تي. الزاوية هنا ومارتي وقصر معناها. مشيني. يسولف. so مركا سيدا ورك نقصه قاري يعني. دربوا حالة قاري إسفهان. سياسات اسمها سياسات marka rajadu aad bay u sareysaa baa leh qolkiiba 8 yani maanta qolkiiba marka waxaan leeyahay hadii qaabka shirka uu ku socdo oo ku sii wada ra'iisul wasaaruhu waxa laga yaabaa inay ifafaalo nabadeed iyo isfahan dhinaca siyaasadda ah ay la imaato arrintaasi way imaanaysaa hadii macnaha fursadan oo maanta prime minister ku haysto iyo Soomaalidan wada ogolka ah yani abajo fursada aad iyo aad u sareyso Ra'iisul Roble haystaa waanigi gorweyd lahaa toddobadan maalmood soo socota Ra'iisul Wasaaruhu marxabu yeelan doona aad u weyn marka badbaadiye maadaama uu isla helay Soomaali wada ogola mucaaradkii dowlad goboleedadii dhinacii madaxtooyada oo ay Soomaalida hadda ay maartay kalsoonida ay ogtahay waxa waqtiga haduu dhamaado yani waxyaalo badan ismaan sheegay marka fursad aad u fiican buu iyo haystaa hadda prime minister waa tahay arrimaha Soomaaliya waa u soo laaban doonaa wariye Xamza Hadow ee Beedmo